بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. إن شاء الله تعالى فرصة يرتى وحان وقفا إلى سنة إن أقوم مهد علينا ولا له نقصوا دوي مقالة فلان جزاهم الله خيرا أنكم وحان لنا هي أمبك تومي كرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وحول قفك وناقدين سمية أبيك توما فكافئوه haddii aydan u beegtoomi karinna u duceeya ilaa aad ka aragtaan inaad u beegtoonteen oo aad abaalgudka idin sameeyeen aad wax ugu bedesheen. sidaa darteed waxaan leenahay jazaakum allahu khayran. sida kale waxaan u mahadnaqaynaa walaalihii liinshow nagu soo dhaweeyey Sweden iyo walaalaha kale ee nala socda ee nala dadaalaya ilaahay khayr ala siiyo. munaasabadan waxaan rabaa oon uga faa'iideysanayaa oo kale in aan idin xusuusiyo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam وعبد الله بن عمر ورينا يقولي هي نبي صلى الله عليه وسلم مال مها كمذا أي وجهي سنة لسوا قابلي مركز وحوري مهاجريني شن هدية قادان وحانا إذا هي إن كم إنجلي إن قادان بيوت على شانه لباتوين بعد عيسى هدية زينة أي قوم أي كم وقت أو زينة إلى أي كم وتستان هدية أي وحى سميان وحوري النبي صلى الله عليه وسلم وحالقوا اتحاما daacuun badan baa lagu itixaamaa iyo xanuuno oo dadkii hore aan hayn jirin baa alla ku salidaa. wuxuu yidhi oo kale nabigu sallallahu alayhi wasallam shantii isagoo kasii hadlaaya haddii ay mikyaalka iyo miisaanka iyo wixii ganacsigii iyo wixii lamidka hadday nusqaamiyaan oo sidii la rabeeyey in loo beega ay u beegi waayaan ilaahay wuxuu yidhi wuxuu ku itixaamaa saddex shay. midda koowaadi waxaa weeyaan shiddat alma'uuna inay sicir barar uu ku dhaco yaa allah ku itixaamaa iyo abaar ayaa allah ku itixaamaa iyo qofkii mas-uulka ka ahaa oo caadil noqon waaya. saddexdaas ayaa lagu itixaamaa buu yidhi nabigu. wuxuu yidhi sala allahu alay slam oo kaleta saddexaad haddii ay zakada bixin waayaanna roobka ayaa cirka ka istaagayo roob uma imanayo. haddii aynan xoolo jiri lahaynna wax roob ahoo u iman lahaa ma jira ayuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam. haddii ballankii ilaahay ay la galeen iyo ballankii nabiga ay la galeen oo ah diinta islaamka ku dhaqankeedana haddii ay kasoo bixi waayaanna wuxuu yidhi cadow baa lagu sallidaa iyaka korkooda ah. markaasuu wuxuu ka qaataa waxa la yaala wixii ay haysteen oo dhan. ta ugu dambaysa ee shanaad wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam haddii ay dadka mas-uuliyiinta ka ihi ay ku xukumi waayaan kitaabka ilaahay oo ay kala door qaadan waayaan ilaa waxaa weeye dagaal iyo islayn gudahooda ayay ku jirayaan. dhibaatooyin weyn oo ina haystaa oo abaaraha ay ka mid yihiin waxa weeyaan waxaan gacmaheena ku kasbanay weeye sida uu ilaahay sheegay uu yidhi waxa la yaala wixii idin asiibaba waxaad gacmihiina ku kasbateen weeye. midda saddexaad aan rabo inaan uga faa'iidaysto waxaa weeye munaasabadan waxaa weeyaan dadka muslimiinta meel kastaba ay joogaanba waxaa la rabaa inay isgarab istaagaan bidaat dadkeena soomaalida ee dhibaatadu ay haysato. waxaan ka codsanaynaa walaalaha muslimiinta iyo walaalaha soomaaliyeed meel kastaba oo joogaanba inay garab istaagaan oo marxaladaasi waa marxaladii la isgarab istaagi jiray oo abaaruhu ay darnaadeen. inay garab istaagaan waxyaabaha la isku itixaamaya ayayna ka mid tahay. waxyaabaha la rabo qof walbaba in iimaankiisa lagu fiiriya ayay ka mid tahay. walaalihii waxaa la rabaa qofka muslimkii inuu garab istaago oo u naxariisto. waayo nabigu sala alla ly slam gacmaha intuu saa isu dhexgeliyey yaa wuxuu yihi walaalaha isjacaylkooda iyo naxariisigooda waxay la mid yihiin hal jidh oo kale oo meel ka mid ah hadday xanuunsato kulligood isla soo jeedayo oo isla xanuunsanaya. marka ha lala xanuunsado walaalahan waa kaan aragnay si u rafaadayaani hala garab istaago. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dhibaatadayna naga dulqaado. ilaahay waxaan ka baryaynaa bicizihi wa karamihi wa makfiratihi inuu noo dembi dhaafo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarahan doogaad iyo barwaaqo ilaahay noogu bedelo. diinta islaamkana kuwii ku dhaqmo uu naga dhigo. hada wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin.